qolka canaanta xabsiga ayaa lagu xiray waa ninkii labada marba gacan qaadka sameeyay ciyaartii waa dhamaatay ninkii ciyaartii ku jiray oo labada marba ninku dulmiyay baa wuxuu yiri nabara igu yaala meel bay xanuunaysa okay waxa uu tagay heegankii joogay markaas ee caafimaadka iyo taliyay xabsiga wax weyni kama muuqan ninka oo markaas isbitaal iyo sokorso iyo yani maxaan ku iraahdaa loogu qaato dib weyn inuu qabo kama muuqan ilaa maqribka adiga inta u dhaxayda waxa dhacday in maxaabiistii ay soo garaacdo albaabka qolkii uu ku xiray ninkaasi iyo maxaabiista kale qayladii iyo garaaci hadii la maqlay taliyaha xabsigu xaadir buu ahaa wuxuu amray albaabka in la furo la garaacayo in la fiiriyo oo waxa ka jira meesha la ogaado maxaabiista waxay sheegeen in meyd dhex yaalo cabdikariin cali afrax taliye ku-xigeenka ciidamada asluubta Soomaaliyeed waxa uu sidoo kale ka hadlay warar la isla dhexmaray oo sheegayay in marxuumka dhintay ee maxbuuska xabsiga dhexdiisa cirbad lagu duray iyo waliba in sidoo kale kontener lagu xiray waan ilaa saakay maqlaynay in idaacadaha barkood ay sheegeen ninkaas in cirbad lagu dhuftay in askari ay murmeen isqabteen ciidanka asluubta ahoo kuwa ilaalinayay dabadeedna container lagu xiray adeer ma lihiin ba container malihi askariga ciidanka asluubta ana ninka maxbuuska awoodu ku xiro ku dilo wax ku yeeleeyo malaha taliyaha xabsiga iyo askarigu way is ag fadhiyaan maxaabiistana hada cadaab aan cadaabno ciidanka asluubta haddaan nahay inaanay dhici karin ama aanay jirin waxaad u garanaysaa xogogaala u tihiin haddii aad Soomaali xalaal tihiin Abdulaahi Maxamed Abdulaahi Somali Cable magaalada Muqdisho